رئيس الوزراء حكومة فدرالك الصومالية مدن حسن علي قير ayaa xafiiskiisa ku qaabilay xildhibaan Beeka Hafaasto oo ka tirsan baarlamaanka Finland qabiirna kuwa arrimaha Soomaaliya geeska Afrika kana soo shaqeeyay macadka nabadda wadankaasi. Ra'iisul wasaaraha iyo xildhibaan Beeka Hafaasto ayaa ka wada hadlay xaaladda Soomaaliya gaar ahaan cafinta deymaha lagu leeyahay dalka, dib u eegista dastuurka, hanaanka xisbiyada badan ee dalka iyo doorashooyinka la filayo in dalka ay ka qabsoomaan sanadka 2020. Beeka Hafaasto ayaa hogaamiyaasha Soomaaliya ku amaanay sida ay uga go'an tahay dib u soo kabashada Soomaaliya, waxa uu sheegay in dawladdiisa Finland ay ku garab taagan tahay kamira dhalinta himilooyinka ummadda Soomaaliyeed lagu horumarinayo. wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga Soomaaliya Cabduqaadir Axmed Khayr oo ra'iisul wasaaraha ku weeliyay kulanka ayaa warbaahinta qaranka warbixiyay waxyaabihii looga hadlay kulanka dhexmaray ra'iisul wasaaraha iyo xildhibaan Beeka Hafaasto oo ka tirsan baarlamaanka Finland. maanta waxaa ku soo booqday ra'iisul wasaaraha xafiiskiisa xildhibaan Mr. Hafaasto oo ka socda dowladda Finland oo ah nin aad khabiir ugu ah arrimaha Soomaaliya geeska Afrika, aadna u khuseeya siyaasadda iyo taariikhda ummadda Soomaaliyeed. wuxuu ku jiray dadkii Soomaaliya nabadda inteeda ka qayb qaatay dowladihii laga soo bilaabo waqtigii madaxweyne Sheekh Shariif ilaa hadda. wuxuuna rabay inuu ogaado Soomaaliya horumarkay samaysay maadaama uu ogaa Soomaaliya meeshii hore joogtay iyo meesha maanta ay taagan tahay. isbeddelka ku dhacay ayuu rabay inuu u kuurgalo. kadibna ra'iisul wasaaraha iyo asaga waxay wadaageen warbixin aad u dheer iyo waraysi aad u dheer ayay wadaageen. ra'iisul wasaarahana wuxuu uga warbixiyey meesha Soomaaliya ay taagnayd, meeshii taagan tahay iyo meesha aan rabno mustaqbalka inay gaarto. tiina wuu la garaystay waxyaabo badan oo khibradiisa asagana ayuu la wadaagay ra'iisul wasaaraha. ra'iisul wasaaraha waxaa kaloo uga warbixiyey waxyaalaha tiirarka Soomaaliya rabto inay tiigsato sida mashruuca deyn cafinta, arrinta dastuurka, dib u qoraalka dastuurka, xisbiyada la dhisi doono iyo doorashada aan rabnay nooca ay tahay iyo xisbiyada in lagu galo. arrintaasna aad ayuu u soo dhaweeyey. wuxuu kaloo tusay Soomaaliya siday u baahan tahay inay lugaheeda ku istaagto iyo Soomaaliya waxyaabaha ay uga baahan tahay beesha caalamka iyo beesha caalamka waxay Soomaaliya uga baahan yihiin, iyo in Soomaaliya ay hadda tahay dowlad u taagan madax banaanida, midnimada iyo difaacidda sharafta ummadda Soomaaliyeed. Nasr Bashiir Cali, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.